وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحنو سعودي تحانيه أن وهل ليني مقعيد إلهي سبحانه وتعالى، وأن مربى مقع انت إلهي سبحانه وتعالى نوفض ذيو أن شرحات كوبا كبحينيني. وحن هذا كهل لينا مقع إلهي سبحانه وتعالى المهيمن. المهيمن وحكم دي هاي مقعيد إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كيسا كشاقي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المهيمن إلهي سبحانه وتعالى مركا مقعا سيتوسا الله فسر وحين قنيسا إن الله سبحانه وتعالى كون كيسا أوردن وكركا دوريو وخلقي كيسا أوردن وكركاس كودا دوريو. إلهي سبحانه وتعالى وحو خلقي سأسو دجيي وحي أي أيقو كوكلا سعون لهايين أسوغو كركا دوريا وحي أي كوكلا هاقي لهايين وحي أي كوكلا نولان لهايين كتابك قرآنك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. علماء وحي هذين آيدان وحي عدين إساء إن إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سأويهي وحدا ما يسترن oo sharaa'icdii la soo dhaafay iyo qawaaniintii la soo dhaafay iyo kuwa hadda loo baahan yahayba kulligoodba hal meel isugu wada keenaysa. wuxuu kaloo cadeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa aayadan ku cadeynayaa inay meesha ka baxayaan wax allaala iyo wixii aan xaq ahayn oo kitaabka quraanka waafaqsanayn oo hawada bini aadanka ka imaanayo. sida darteed kitaabkaas ilaahay soo dejiyay baa wuxuu yahay midka xaq ah ee inta kale oo dhan ka sara maraya ee korka ka sii maamulaya. إلهي سبحانه وتعالى مقعان وليه اللي لهذا المهيمن ومقع كوبية نرشة أوردن خلقك أوردن وحكست أو مخلوقات كلا حريرة كرك معمولية أو كرك لسعونية. كرك معمول كاس مركب وحوكينيا إنه إلهي إلهيو أو حفظ أوسيو وهدي إلهي سبحانه وتعالى وسن أمدان كلا دور لهين أو سن كلا إلهان لهين ويبقى اسكود حياعي لهايين وهب maamulkoodii baa isku dhaxyaaci lahaa hab fakarkoodii baa isku dhaxyaaci lahaa. sida darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta asagay gacantiisa ku jiraan, wax kastana asagay ka imaadaan, awood kastana asagaa bixiya. sida darteed wax kasta oo qarsoon ilaahay subxaanahu wa tacaala baa dusha ka ilaalinaya, arwaaxda ilaalinaya, jasad dadka jirkoodana ilaalinaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa kor ka dhowraya waxa adiga maskaxdaada ku soo dhacaya inta aysan ku soo dhicin. marka ay ku soo dhacaan oo ay maskaxdaada qarsoodi ku noqdaan ilaahay uu og yahay. marka aad rabto inaad banaanka u soo bixiso hadii ay cadaalad iyo xaq ku dhisan yihiin asaga kugu gargaaraya oo ku garab istaagayo. sida darteed ilaahay waxyaabaha uu korka ilaalinayo waxa kamid ah adiga wax maskaxdaada ku jira, haday tahay xanaaq, haday tahay farxad, haday tahay naxariis darro. sida darteed ilaahay wuxuu og yahay baahida jirkaaga ku jira, baahida dareenkaaga ku jira. markaad u baahan tahay, marka aad inta dheregto nolol fiican hesho, haddii aad qooq ka qaaday iyo haddii aad ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadnaq ugu celinaysid. sida darteed qofka muslimka waxaa la rabaa magacan almuhaymin noloshiisu inay mar walba ku jirto oo uu ogaado inuu yahay adoon xagga ilaahay laga ilaalinayo inuu yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaalinayo oo socodkiisa la ilaalinayo oo sirtiisa la ilaalinayo. asaguna la rabo qof toosan maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kor ka dhowrayo fiirinayo waxa uu kugu fiirinayo waana la rabaa inaad ku ilaashato, waana meesha uu ka imaanayo inaad ku dhaqanto waxa la dhaho al-ihsaan. ihsaankuna wuxuu yahay an ta'bud allaha ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. waa qaanuun nolosha ah oo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyo ah adiga waxaad u dhaqantaa sida ilaahay inuu ku an ta'bud allaha ka'annaka taraahu inaad ilaahay cibaadadiisa u gudato adigoo asle waa lagu jeeda ama adiga wax u jeedo. haddaan adiga wax u jeedinna waa lagu jeeda. walillaahi almathalu al'ala. waa garanaysaa qofka marka uu shaqaalaha yahay oo meel ka shaqeynayo, marka qofkii madaxda u ahaa uu dul taagan yahay oo uu fiirinayo dhaqankiisu waa ka duwanaanaya marka aan la fiirinaynin. nolosha hadda horumartay waxaa la sameeyay kaamirooyin in lagu xiraa xafiisyada
meelaha dadka marayaana lagu xiro kaamirooyin waxay keentay qofkii habdhaqankiisa iyo suluugiisa iyo socodkiisa iyo akhlaaqdiisa inay wanaagsanaato maadaama uu u jeedo in la fiirsanayo oo la arko sida darteed waxaa laga rabaa ilaahay inaad ku caabudo maadaama aad og tahay inuu ilaahay muhaymin yahay oo uu kor kaa dhowrayo ku fiirinayo jawaabta la rabo inaad bixiso waxaa waaye inaad adigana martabadii al-ixsaanka aad gaarto martabada ixsaanka inaad gaartana waxaa la yiraahdaa waa marka damiirkaagu uu aad iyo aad u weynaaday oo islaamnimadii aad soo martay iimaankii aad soo martay marxaladii ugu sarreysay aad maraysay oo adiga qalbigaaga uu gaaray heer uu go-aan ka gaari karo waxaan ma kugu habboon yihiin waxaan ilaahay ma kuu ogol yahay maadaama uu ilaahay muhaymin yahay oo uu kor kaa dhowraayo adigana aad u jeedo inuu ilaahay ku ilaalinayo oo ku waardeynayo waxa ku qasban tahay inaad ku dhaqanto waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala aad og tahay inuu ku farxayo oo raalli kaaga noqonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu yahay muhaymin wuxuu asaguna dejistay qawaaniin oo qofkii qawaaniintaas ku xadgudba uu gacanta ku qabanayo haddii dulmi qof uu sameeyo qofkaas inuu dulmiga ka qabanayo laga yaabo in loo sugo xoogaa yar oo mararka qaar dunuubta kusii badanayaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ku xadgudba wuxuu u samaystay ciqaab dadka khalqigiisa ku xadgudbana wuxuu u samaystay ciqaab maadaama uu muhaymin yahay marka halkaas koruu ka waardiyeysanayaa xuquuqdii bini aadamka ku kala ilaalinayaa qawaaniintii uu dejiyana uu ku kala ilaalinayaa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala korka dhowridiisa lagu gaarayna waxaa ka mid ah inuu ilaahay xataa nolosha bini aadamka ay u baahnaayeen iyo makhluuqaadka kale inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kala ratibay oo uu kala nidaamiyey oo koonkan dhan ilaahay uu sameeyey nidaam korka dhowris ah oo kulligiis wada ilaalinaya waladii jacala shamsa diyaa'an والقمر نورا وقدره منازل إلهي سبحانه وتعالى حتى وحيابه أننا نولشنا أنو باهنين ويقرح ذا كم التهاي وحدقاها كم يهين وإفتين كم يهين إلهي سبحانه وتعالى ونور رتبي وحوكلو إلهي قاتي وأساو اللوريقي waxaan uu dadkan uu oomay ama makhluuqan uu oomay bini aadanka iyo kuwa kaleba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga noloshooda kafaalo qaado وفي السماء رزقكم وما توعدون inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu kor kaa dhowrayo waxyaabaha adiga aad u baahan tahayna uu ku siinayaa oo uu ku agdhigayaa maadaama marka ilaahay asaga dhankiisii uu muhaymin yahay oo wixii aad u baahnayd uu kuu diyaariyey adigana waxaa laga rabaa waxa ilaahay kaaga baahnaa inaad diyaariso والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيغا للا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبك ما غرسون قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا عيسو ووارثان دمانه